ciidamada xoogga dalka waxay goob kasta ka wadaan ololo ballaaran oo lagu sifaynayo cadowga al-shabaab sida jubbooyinka koonfur galbeed hirshabeelle galmudug ilaa puntland intaba waxaa ka socda sifayn aan sifaynayna ciidanka cadowga al-shabaab oon ka baabiinayna dalka soomaaliyeed ee ay curyaamiyeen cabsi geliyeen shacabka soomaaliyeed hantidooda naftooda iyo hantidoodaba waa cadow dhiig miirata ah cadowgaas asaga ah waxaan jecelnahay sanadka inta ka dhiman inaan ku soo afjari doonno hadduu ilaahay idmo tuutaan ninka wataa waa shacabka shaqaale shacabka markaad ciidan maqashaan waxaan u shaqaynaa shacabka waana la soo dhaariyay kitaabaan soo marnay inaan shacabkeena u dagaalanno inaan cadowga kala dagaalanno inaan wax allaala wixii aan gaarsiin karno oo taakulayna waxaan maanta cun lahayn inaan iyagana ay nala cunaan ayaa halkaan naloo keenay waxaana lagu soo ballamay amarka madaxda naga sarraysa madaxweynaha ugu sarreeya ra'iisul wasaaraha ku xiga taliyaha xoogga ciidamada ku xiga amaanduulka ciidamada oo haddana wata ayaa ku xiga waxaan ballantii naan soo qaadno waxay ahayd inaan shacabka gacmo furan ku soo dhaweyno cadowga kala dagaalanno biyo aan cabaynana aan wax ka siino badarka cunana wax ka siino waa shacabkiinni aad tihiin ciidamadiinni aan nahay saraakiishii ciidamadooda aan nahay waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan cadowga la dagaalanno inaan galaas biyo haddaa cabaynana galaas kaleeto idinkana cabtaan waxaana aan idinka saari doonno inaan idinkana noo soo ducaysiin saasaan idinka rabnaa wabillahi tawfiiq dagaalka aad maqasheen ee ka dhacay jilmarka waxa weeye waxaa lagu dilay 16 al-shabaab ah horjooga ajnabi ah lagu dilay oo maaragtay halkaas lagu dilay marka shabaab far badan lagu laayay halka naftigeeda dagaalkii cuslaayo ka dhacay shabaab far badan lagu laayay maxaabiisaan ka qabanay marka oo far badan oo al-shabaab ah hadda qaaraan ka qabanay halkaan oo gudbinay marka waqti kastaba waan qabanaa waa gudbinaa anaga hadee waxay ku dhaqmayaan oo kale kuma dhaqmayno dad diin lahaanahay dad Soomaali matalaanahay xoogga dalkan nahay ma dilayno qof aan qabanay ma dilayno bilaadanimada aan ogolaanayn ayaga waxa ay ku dhaqmaana kuma dhaqmi karno shabaab waa qabanay dawladda u gudbinay wixii xabadda ku dhintayna waa cadahay arintaas buugay ku qoran yihiin
ninkaas wuxuu ahay nimankii bakistaanka dagaalami jiray kolkii dambana Boko Haram u galay wuxuu ahaa waxaa la yiraahdaa Naasir al-Jaabiri shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa cadowgan hilibkooda cunaya hantidooda cunaya guri kasta iyo geed kasta fadhiya xoolahooda dhacaya beenta iyo dulmiga sekada ugu qaadanaya seko ulul amriga oo yaani islaamku ay doorteen ayaa seka qaadi kara nin calan madow iska wato durkiisa ordaysa kama qaado waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa dawladda ha garab istaagaano ciidamadooda ha garab istaagaano naftooda ha huraano aan iska sifayna nin walba uu seeftaada guriga kala soo bax aan la dagaalano